sanad walba kumanaan arday ayaa ka qalin jabiyo jaamacadaha dalka kaliya arday yar ayaa u suurto gasho inay shaqo helaan oraahda kaliya ay ka sameeyeen dhalinyarta Soomaaliyeed waa inay shaqo la'aan heeso qaar inaga mid ah iyaga oo naftooda iyo tan familkooda horumar la rabo ayay waxay ku baabeen bado iyo maxaabiis muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa sida shaqo u abuuran lahayd waliba adiga oo gurigaaga joogo halkii aad waqti ku bixin lahayd inaad CV geysi xafiisyo kala duwan oo aad maalin walba dhahdii xafiisyo ayaa CV geynaya halka inaga daawanayso waa janaalka Fusun waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe inoo saarto oo muuqaalkan inoo la gareyso lana wadaagtay saaxiibadaada wixii fikir iyo talo iyo tusaalahana nagula wadaag qaybta commentiska ama faalada mahadsanidin maanta waxaa joognaa waqti casri ah oo ay teknoolajiyadu wax walba inoo fududeysay haddii aan lahayd qofka inuu si fudud lacag ku sameeyo iyo haddii ay noqon lahayd qofka inuu si fudud wax ku barto muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa sida shaqo u abuuran lahayd adiga oo ka faa'iideysanayo internetka shaqada koowaad aad abuuran kartid adiga oo qofna ku maamuleynin waa inaad lacag ka sameysaa social media platformskiisa kala duwan sida YouTube-ka, Facebook-ka iyo TikTok-ka si aad lacag ugu sameysid platformyadan kala duwan kaliya waxaa ka xigto inaad la imaatid fikradaas oo ah mid positive oo dadka wacyigooda wax ka bedelayo nafsad ahaantaadana sumcadaada iyo qiimahaagana sare u qaadayo markii aad fikir kala imaatid waxaa si fudud ugu sameyn kartaa dhaqaale oo joogto ah bil walba saawad ognahay 90% dhalinyarteena ama 100% waxay waqti ku bixiyaan daawashada ama isticmaalka baraha bulshada platformyada kala duwan iyaga oo isdhahayo maanta waqtigaaga ku dhaafi waqtiga maanta isdhaafinaysi waa mid adiga ka jaran because of halkii maanta oo dhan qof asaaga ay daawan lahayd oo maanta oo dhan waqti ku dhumin lahayd waxa ka qurux badan ina adiga abuurtay fikirkaasna aad ku soo gudbisay mid kamid ah platformyadan sidoo kale saddexdan platform ee Facebook, YouTube iyo TikTok waxay bedeleen dhalinyarada badan oo caalamka ah hadii noqon lahayn Soomaali iyo hadii noqon lahayn ajaanib ay noloshooda wax ka bedeshay platformyadan laguma weydiinayo inaad degree haysatay ma ku xirno kaliya waxay ku xiran tahay sida u fikiraysid iyo sida wax u soo gudbinaysay wayna fududahay inaad fikrad markaa limaatay qaabka muuqaalada loo sameeyo qaabka scriptiga loo qoro waxa ka helaysaa YouTube adigoo isbaraya kaligaaga bil walbana waxa ka sameyn kartaa dhaqaale joogto ah laakiin mid xusuusnaaw platformyadan markii aad fikradaada ku soo gudbinaysay ma laga yaabo inay markiiba isla markii ay hore kaga qarxaan waxa laga yaabaa inay kugu qaadato 1 sano waxa laga yaabaa inay kugu qaadato 2 sano ina heshi dad badan oo ku daawado haddii aad tahay qof nacib in muuqaal oo editor gareeyo ama muuqaal wajigiisa oo soo bandhigo ama in oo muuqaal duubo ama codkiisa oo soo saaro waxa sameyn kartaa inaad sameysatid qoraal maqaale inaad qorti ama sheekooyin ha noqoto ama su'aalaha noqoto inaad maqaale ku soo gudbisi website-kaas markii ay heshay dad badan oo soo booqdo oo warbixinada akhristo isagana waxa ka sameyn kartaa dhaqaale oo joogto ah bil walba ah website-yada aad sameyn karto waxa kamid ah inaad blog dhisati oo aad blog ku soo gudbisi fikradahaaga sidoo kale inaad maxal laha WordPress-kaaga ku soo gudbisi fikrada kale oo aad ku shaqeysan kartid oo shaqo ku abuuran kartid waa inaad xirfadahaada u bedeshaa lacag haddii aad tahay qof leh xirfada video editing-ka graphic design-ka ama photographer-ka dhammaan xirfadahaas waa ka sameyn kartaa lacag adiga oo sameysanaysi shaqo ama brand ku gaar adiga haddaad tahay qof xiiseynaya graphic design ama markaas bilaaw waxaa jiro website-yo oo ku fududeynayo shaqadii qofka professional graphic design uu qaban lahayo kale inay ku siiyaan oo ah template kala duwan tusaale waxa soo qaadan karnaa inaad graphic designer rabaa inaad ku shaqeysto okay waxa la sameyn kartaa waxaa jirto website la dhaho Canva wuxuu leeyahay application uu leeyahay website ahaan oo u booqan kartaa marka booqati wuxuu ku siinayaa template kala duwan haddii aad sameynayso poster haddii aad sameynayso logo kaliya template-daas oo ku siinayo ayaa waxa sameyn kartaa inaad wax ka bedesho oo qofka macmiilka u shaqeynaysa markaas ayaa uu bedelaysaa sidee marka wax ugu badan isweydiinaya waxa waa sidee macmiilku heli karaa habka ugu fudud oo macmiil ku heli karto waxa waaye ina qof aad taqaanid oo shirkad leh ina maxal la shirkada magaciisa ama loogadiisa ina soo qaadatay
oo aad u sameysay sambalo kala duwan. Sambaladii markaa u sameysay qofka aad tustay dhaadiniyow waxaana ku sameeyay postigaana ku sameeyay jimco wanaagsan ku sameeyay ramadaana ku soo sameeyay maxal lahaa adeegaas qawnaysa soo sameeyay postiga qofka markaa tustay oo 5 xabo 10 xabo markaa u dirtay maalinta isaga ayaa wuxuu ku leeyahay warniyo barnaamijkan waa ka helay wax badan waa ka faa'iiday niyow iso sameey khidmada ku siinaa sidaasna lacag waa uu sameyn kartaa. mid kale xusuusnaa Canva wuxuu leeyahay isagoo free wuu jiraa isagoo lacagna wuu jiraa. haddii kale waxaa isticmaal kartaa Freepik website kale oo isagana wuxuu ku siinaa template qurux badan oo kala duwan. templatedaas ayaa waxaa keensanaysaa Photoshop-kaaga ama Adobe Illustrator-kaaga kadib wax ayaa ka bedelaysaa. dhammaan marka website-yadan waxay ku fududeynayaan in maxaa la dhahaa xirfadaadii ama graphic design-kaaga markaas bilaaw ku ahayd inay template qurux badan ku siiyaan kadibna qofkii customer-ka ahay oo sidaas uu geysay oo template kala duwan u abuurtay kadibna uu qofkii ku dhawarniyo anaa lacag ku siinayo maalintii 10 xabiis samee ama 5 xabiis samee ama usbuuci 20 xabiis oo samee sidaas ayaa lacag u sameyn kartaa. marka adiga oo waqti ku dhuminin inaad CV mail geysay ina maato dhan shaqaalaha meel la fariis ayada oo 2024 la marayo tiknoolajiyada casri tahay ayaa waxa sameyn kartaa xirfadaha kaliya ma ahan ina graphic design iyo video editing iyo photographer-ka sidoo kale waxa sameyn kartaa ina barati cryptocurrency-ga ina barati forex-ka ina barati maxal lahaa xirfadaha kala duwan digital marketing-ka affiliate marketing-ka dhammaan marka xirfadahaas markii aad barati oo waqti aad gelisay dhamaantood waxa ka helaysaa YouTube-ka iyaga oo free ah ayagoo English lagu hadlayo ayagoo af Soomaali lagu sharxayo iyagoo af Carabi lagu hadlayo muuqaal ka horeeyay waxaan ku soo gudbinay sida adiga wax isku bari lahayd naftaada. haddii aadan soo daawan muuqaalkaas falan dib ugu noqo ee soo daawo kadib ayaa waxa ku fududaanayso inaa xirfad cusub aad baratay kadibna aad lacag ka sameysay aad ku shaqaysatay. mar walba oo wax la bilaabayo xaqiiqdii ma ahan mid fudud oo isla markii qarxayo waxa laga baahan yahay inaad sameysay dulqaad inaad sameysay dabar adeeg mar walba waxa ku sabartaa inaad shaqalaanteeda ku sabartaa sidoo kale waa inaad ku sabartaa fikirka adiga curusay oo abuureysay oo arabti inaad bilaawday isagana waa inaad ku sabartaa oo u dulqaadataa. tusaale kale hadii qof uu ku dhawo shaqa ku siina oo ku dhaw bishii $100 ku siina ama $80 ku siina waa ku sabrayma waxa leedahay 6 bilood waa dulqaadanaa intii barnaamijkan xoolahan iyo waxa aad ka fikiray si lamid ah waxa la rabaa fikirkaaga ganacsi ama brandingaaga social media ugu shaqeysanaysa lacag ugu sameynaysa isagana waa inaad ku sabartaa waa inaad ku dhabar adeegtaa waa inaad joogtaysaa oo consistency noqotaa aadan marnaba ka niyajabin. waxaan idin rajeynayaa dhamaantiin guul ayaan rajeynayaa. markale waxa ku xusuusinaya haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad channel subscribe inoo saarto muuqaalkan inoo like garayso lana sii wadaagto saaxiibadaada wixii fikri talaana nagu wadaag qaybta faalada ama comments-ka. ma sanadin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.